xanuun badan khusayso ama taabanayso dadka reer galbeedka ku nool. saa u jeedaan wadamada reer galbeedka aada loogu soo qaxay, dad badanaa soo qaxay. dadkii soo qaxay qaar dhaqsi sharciyada heleen, qaarna maysan helin. dadkii sharciyada helay dhaqso faamiladooda waa soo ziyaarteen, qaarna uu iska hilmaameen. qisada romaantina idinla waraago waa qiso oo ku dhacday wiil dhalinyaro ah oo hooyadiis kaligeed ka lahayd oo tahriib soo galay, soo baxay, ka soo maqnay waalidkiisa dhowr sano, 10 sano ka badan waalidkiis ka maqnaa. kadib sharciga helay, kadibna hooyadiis la xiriiray, kadibna hooyadiisii wada hadleen oo ku tiri ii imaaw, yiri insha Allah tacaala waa ku imaan doonaa, laakiin hal sano kale isii waa soo shaqaysana. hooyada way xanuunsaneed, umaysan sheegin wiilkeeda, way ka baqaysay ma karan lahayo inuu walwalo. hooyada aad ay u xanuunsaneed, diriskiina telefoonkiisa maysan haynin. marka maalmaha ka mid hooyada soo wacday, soo ii sheegay mar kale. hadalkeeda wuxuu ka dareemay xoogo qof xanuunsan inay tahay. waxay tiri hooyo goorma iimaanaysaa? wuxuu yiri hooyo shaqadii si wax iga noqnoqdeen, waxaa laga yaabaa sanad kale inaan gadaal u sii dhaco. waxay igu tiri waa jeclaan lahaa inaan ku arko, laakiin shaqadaada iska sii wado, wax dhib ma lahan, saa jeceshida khayr Allah ku waafajiyo. hayaan dhahay yiri anigana waa shaqadiina iska watay. dhowr maalmood kadib waa lii soo wacay oo dhahay dada isoo wacay oo uu yiri miyo caasiga ah oo ilaahay aan ka baqaynin, hooyada maxaasan ugu gashay iyadoo xanuunsan oo kansar qabto oo haddana kilidii wax ka gaareen, intaasoo dhibaato gaartay. isbitaal xataa hooyada ma geyn weyse oo maxaasan ugu sameey weyse. marka maxaa ka hadlaysiin? marka wuxuu yiri waxay ugu dhahay marka hooyada waa dhimatay, ilaahayna ha u naxariisto, sabir imaan Allah ka siiyo. laakiin hal waxaan kuu sheegaynaa oo markii dhimanaysa hooyada maysan faraxsaneen, iyadoo oynayso ayay dhimatay, dhehayso adduunka waxaan jeclaan lahaa maanta cunugayga hebel inuu i ag joogo, cunugayga hebel inaan taabto, cunugayga hebel inaan la hadlo ayaan aad u jeclaan lahay. laakiin waxay tiri ma dhicin. waxa jiran waxaa waaye ma lagugu yeeraa markii la yiri suu ii sheeg. waxay tiri shaqadiisu uu doortay dhowr jeeraan u sheegay ani cunugayga almost 10 xoogoo sanaan iskeen dambayso ma rabin inaan dhibo, laakiin waa u sheegay dhowr jeer inuu ii yimaado inaan arko inaan rabo. marka intaasay u sheegtay. hooyadii waa geeriyootay. cunugii marka ninkii hooyadiis markii geeriyootay kadib adduunka ku soo xirxirmay, waa wuxuu sameeyo garan waayay. hooyadii keligii soo korisay, dhowr iyo 10 sano ka badan uu ka maqnaa, way dhimatay. wuxuu yiri hadda maxaan sameeyaa meesha ma taalo bogta hadda ilaahu naxariisto. kulay sadaqo u bixiyaan ku dhahay, sadaqa jaari u sameey una ducooy. su-aashan weydiiyey waxay sharciga goorma heshay? shalay ma heshay, daraad ma heshay? may wuxuu yiri ardayda almost 5 sano ku dhawaad waa haystaa sharciga. 5 sano waa haysataa ayaan ku dhahay, weligaan hooyada ma soo ziyaaranin. may u dhahay okay طيب waxa ku baxday hawa yaraatay ma haysataa? haa uu igu dhahay 3 sano ka hor uu guursaday suu ii sheegay. qof markuu guursana xoogo badan ka baxay waa taqaanaa. المهم qofka hadalkiisaan ka dareemay nadaamadu dareemay, shalaytu dareemay, sababtay tahay waxa sharciga ku baxan uu haystay, xoolo uu ku taagana uu haystay, laakiin wuxuu go'aansaday inuu gadaal u dhigo. qofku markuu dibadda wax badan joogo waxaa laga yaabaa raxmadii oo qalbiga ku jirto xoogo inay ka yaraatay ayaa laga yaabaa. المهم qisadaas uu ila wadaagay. hal waxna uu iga codsaday, hooyadiisana u duceysaan. wuxuu dadka ku daawanayo igu sheeg hooyadii inay igu duceeyaan, anigana ilaahay ii dambi dhaafo.
dadka walaalaha laga yaabo qisada inay dhageystaan sideedu kale ah hooyadooda ama aabahooda dhowrka sano ka maqan awoodo inay soo ziyaartaan oo aan soo ziyaaranin waxaa ku dhahdaay maanta intaa waqti haysan intaa birisha lay lahayd hooyadiina soo ziyaarta wuxuu ii sheegay uu igu dhaartay usbuuc hooyadiisa hal habeen ama laba habeen inuu ku yiraado oo wiiraan hal habeen inuu ku riyaado hooyadiisu ka xanaagsan oo meel fadhiso ama hooyadiisu oynayso markuu rabo inuu taga raali geliyeen wuxuu yiri buur weyn aan dhaxtaal oo aan kori karin marka arrintaas uu ii sheegay runtii waana ka naxay aan riida ma fasiro haday jiraan dad riida fasiro ha u soo fasiraan hooyadiisu ku riyoona oo yaraan wiigi hal mar oynayso ama ka xanaagsan markuu rabo inuu tago raali geliyeen mar ay ka jeesanayso markuu soo rabo inuu tago uu waynayo marna buur ahaan oo kori kara asoo u jeeda rabo inuu koro daalay neeftuuraayo asoo neeftuuraayo uu soo kacayo dadreeda fasiraday jiraan culamo ama asxaab oo soo fasira hooyadiisu soo ducooya asina ducooyin ilaahu dambi dhaaf walaalaha daawanayna ha ku cibro qaataan waalidka waa hal marjaanis waaye ka faa'iideyso insha Allah hadaa awoodid in waalidka soo ziyaaratid soo ziyaaro اسبوع بإلهي وهالمر الله كده يسوع زياره طبعا سنة هويدا كم مقنتي أنا 20 سنة والدي كم مقنتي ترنتي وحنون واي حد حاملين سجرانتي أنا كويستي يجوا جايين لكن وحاله ولود مجوا جايين ومقوف بهر مراي أما ذا هر مريسيت أما يجا هر مراي هذا أدي هر مرتي ذا بدرمبو يجوك أركن على الأقل مركز ميلا وحكي قبت ما بلغمبو هذه كهر مرة ودعوين كرتاي صدق أو بحين كرتاي إلى هذا بدأ في ويدي سن كرتاي مركز ضميرتي داونيسو أم ولا له داونايو حار بينان بقو فضلا هذا والد اللي هذا هي وأنا سو زيارني أنا سو بوقني وقت دير سو زيارو dadka qaarkood waxay meelaan telefoonka lagala hadlay kaliya inay tahay baarinimo ay tahay hadaa awoodid adiga saa jecesha adiga waalida tahay soo jecesha caruurtaada in habeen walba aragtid haga u siisid ama ay ku soo wacaan ayayna sidoo kale yihiin mana safar ku jiri ilmihii mid kamid ah soo wacay farxadaan dareem ilaahay baa ogaay aadan u farxay alxamdulillah ku maanta ilmihii mid kamid ah soo xasuusi soo waray soo farxay waan u sheegay inaan ku farxay wacitaankooda marka waalidkan hooyadin sidoo kale way aabahan sidoo kale way ka faa'iideysa jaaniskaas intuusan ku dhaafin جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قصدا waxaa ka faa'iideysay soo qor hada wax u lamid tahay sida noo soo qor waalidkiisu soo ducooy asigana u ducooy dad riyada fasiraday jiraan riyadaas noo soo fasiraan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته